gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad oo howlo shaqo ku jooga magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in dastuurka Soomaaliya uusan haba yaraatee gacanta ugu jirin xukuumadda iyo baarlamaanka toona ee hay'adaha shisheeye ay maamulayaan. waxa uu sheegay aragtiyada la xiriira in dastuurka qaabka loo qabyatirayo oo shacabka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda ay dhiibteen ay hay'adaha qaramada midoobay aysan soo gudbin qaabkii loo baahnaa. waxana uu sheegay in dastuurku yahay mid ay hay'aduhu maamulayaan. dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad waxa uu farta ku gaday oo uu dhaliilay shirka la filayo in uu ka dhaco dhamaadka bishan magaalada Baydhabo oo ay isugu imaanayaan dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha kaas oo laga hadlayo kheyraadka Soomaaliya iyo dastuurka Soomaaliya. waxa uu sheegay in shirkaasi uusan ahayn mid masiirkiisu ku filan yahay in go'aano saas oo kale lagu gaaro magaalo kamid ah Soomaaliya oo ay sida uu sheegay imaadaan ama ay isugu yimaadaan 4 qof oo kala matalaya Soomaaliya oo dhan. haddaba waxaan idinku duwaya markan hadalka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalle Cawad. waxaa la wareystay 10,000 oo qof oo Soomaali ah oo gudaha jooga oo dibadda jooga, qaar si toos ah loo wareystay, qaar si dadban loo wareystay, qaar through the media lagu soo wareystay, qaar text message lagu soo wareystay, 10,000 oo qof oo araadooda la soo aruuriyay. ra'yigoodii iyo wixii laga soo aruuriyay ma hayno hay'ad baa qaadatay ma garad oo haysata annaga baarlamaan ama naloo ogola, xukuumad looma ogola, wax allaale iyo waxa weeye kharashka ku baxay milyoonaad dollar oo ay EU-du ka mid tahay ayaa ku baxday kharashkaas, cid loo sameeyana ma naqaan. kharashkaasna hadda annaga nala siiyo nalagu bixiyay. waxa weeye yacni wax badan oo caawimaad ah oo farsamo ah ayaan beesha caalamka uga baahannahay, taas waa qiraynaa. laakiinse caqabado tiro badan oo dimuqraadiyadda iyo la tashiga shacabka iyo waxa weeye yacni xorriyadda Soomaaliyeed caqabad ku ah ayaa beesha caalamka la socda. waa dawo iyo sun wada jira weeye, kamana maarantid dhaqaalahoodii iyo inay garab ku siiyaan iyo inay farsamo ku siiyaan, laakiinse si fudud ayaa waxa weeye ka tashigii masiirkaaga meesha looga saaraya. tusaale yar baan rabaa inaan idin siiyo. dowlad goboleedyaal la dhisayo waxa weeye waxaan tusaale ka soo qaadanayaa meel walba oo kale waa ka dhacday South West. waxaa la yiri oo dadkii reer South West iyo maaragtay dadkii federaalka ka matalayay iyo kulli waxaa la yiri waxaan rabnaa inaan baarlamaan dhisano, inaan dastuur samaysano oo erga ansixiso, kadibna inaan baarlamaan dhisano, kadibna baarlamaankaasi inuu madaxweyne doorto, madaxweynahaasna uu xukuumad soo dhiso oo baarlamaanku ansixiyo. ayaa dadkii reer South West go'aansadeen. qoladii beesha caalamku waxay tiri ma idin sugi karno, Christmaskii baa soo dhow ma garad ma idin sugi karnaa leeyahay. annagu safar baan aadaynaa, marka arrinkii waxaa la sameeyay 2 usbuuc baa dad inta meel lagu soo aruuriyaa la yiri macal madaxweynihii doorta, because annagu waa baxaynaa si aan xafladii shacabkii aan uga qayb galno, madaxweynaha xafladiisa aan uga qayb galno. ilaa hadda dastuurkii South West si uu yahay waa la garan la'yahay. mandate-ka hadda hadduu dhamaado dastuurkii kuma qorna cid allaale cid dooranaysa lama yaqaan. ilaa waagii baa qarjacadaas dhowr qof oo Christmas aadaya awgood ayaa loo marin habaabiyay ummad dhan waxa weeye loo marin habaabiyay oo dhibteedu ay maanta taagan tahay. waxa weeye waxaana laga rabaa inaanu sidaan uga faa'iideysan karno saaxiibadeen ay noo cadaato waxyaabaha dhibaatada ah oo mushkiladda ah oo dowladnimadeennii iyo dadnimadeennii halista ku ah. annagu timetable-koodana kuma shaqayn karno, arrimahooda oo waxa weeye waa inuu ajanduhu uu noqdaa mid Soomaaliyeed, waa inuu noqdaa kan oo nalagu caawinayo. laakiinse dastuur oo Boston lagu soo sameeyay annagu ma karayno. intaan ka badan ummadda indhaha cid loogama shubi karo. shacabka Soomaaliyeed waxa weeye waa inaan dadkii matalayay baan nahay, rabitaankooda waa inaan anagu soo dhuuxnaa.
markii ugu horeysay intii uu يعني برلمان كانوا جري أنا وأنت برلمان سويت جرت الله عرضه واتجناي أو حتى حين يردد وحلقوا ويدين ميزانية دودة وهذا قيدينه تي حد يهيد تي حد وجود بيس أي أهيد واللي ميزانية دين وأنت صوا الله بقول أنت صوا كل ساسا أنا ونرد هاي إنكم حيد الله تحت حتى يعني وحب الله سوق قادر رأي يقول لكن إلا ويديه وحوي سيستم ك ديمقراطيتنا سيدا معها شعب كصوماليتنا سيدا اسم استاهلان حتى أن كأمسنا أنو وأنو وحوي أن كرسي جيجا أن آير إلى عشانه وحوي ومدة الصوماليات ماشي يتاجن تهي إنه كسي هوس مرتمويه قرب وقصوق عيسو وحن إذا كبا هن هاي إن أرمها سكف فكرتان مسكحضو كل جيم بين نجوده جرتان وحي أن قبن أو شعب الصوماليات أن قبن وإنا نمية به كرنا سي أن ربح حمان وإنا ندهنا مية ولا له يا ولا له مية وإنا ندهنا وحتى سي خربني أن نروده سيدنا ربنا سيدنا كعنها الروسية عن دهن وحوي إن يرى أكتيفيزم عن موجينه شقدي بنكون قرينا يعني إن برلمان كنا قرينا دستور كان يحرسات كانوا وحنا فريا حل بعنضة هي civil society وإن أساس أوضة شقيان صابت أو لبضوا بقى قاب قاري شعبكم مثلا ما وضع شقينا أنا civil society ما وضع شقينا يقولون ميل بيننا حنتان ما أقام كراس تيجي من داود بهيه ما قرأت أنا قلنا واحد عندنا NGO هي civil society باسبا عردي وريري لكن سواء على الرباع واسكوب باهنا هاي شعب كاس إن لا ترى أو رأي جودة يربطان كودا لو حكومة أو وحلوي ديو عن إسكا كاشن إنهاس سيد الله سمين لها كفكرة وحوي إسكاش يقولنا هل كان قبل اللوضة ضد بدن أو وحوي أجد ياشا للربع إناد وحكا قبطان قرب إذا كوجا أياتشرة أو صومالي أو أجنبي إذا كنت هاك عشانية وحنا كل اللي رجلنا إننا أنت كبضن يعني شعب الصوماليات سدم لو في سنين وحوي حل بعنا ذي كلام قال ذي شوغان وإنصار سلام الدوران وحنا إذا الله هاي مبروك شقد في عناد هروس وقبتين وحنا مبروك إذا الله هاي شقد القبض دونتان هذا وحوم يلاقى ولا واحد قبض دونتان لو حد الله مبروك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.